dowladda Puntland gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo howlaha guud ayaa inta la ogyahay markii ugu horeysay isbedel ku sameysay taarikada gawaarida isla markaana meesha ka saaraysa kala dambeynta taarikada iibka gaarigana lagu qiimeyn doono nooca iyo motorkiisa sidoo kale taarikadan oo ka kooban xarfo kooban ayaa lagu sheegay in laamaha ammaanku ay si fudud ula socon karaan dhaqdhaqaaqa gaariga wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee gaadiidka dowladda Puntland Cabdiraxmaan Yuusuf Tijaana ayaa ka hadlay ujeedada wasaaraddu ka leedahay bedelka taarikada cusub. waxaan bedelay taargadii waxaana rabnaa haddii alla idmo sidaad maqasheen ba taargadaas cusub hadda inay dhaqan gasho ilaahay idmo taargada waxaa lagu xiri doonaa baabuurta hadda dekada ka soo degto cusub kuwii hore u haystana waxaan u nadaaminay qofka hadduu yimaado oo raba taargada inuu iska bedelo waa loo bedelayaa haddii uu sidiisa ku wadanayana kolba systemka ku imaan doona oo waxaa laga yaabaa intay barnaamijkan dekada ilaa baabuurtan cusub markay soo dhammaadaan ka bacdi inuu dhammaan qof walba qaadan doono laakiin cidaan maanta ku khasbayna ma jirto arrinta inaan bedelno arrinta nagu keentay waxay yahay bulshada reer Puntland oo runtii concern badan ama cabasho badan ka muujisay waxaa jirta baabuur aan cusbayn oo laga yaabo scrap in wadanka ku soo galay oo taargo lagu dhajinayo 45 ka bacdina waxa weeye ka qiimo badan iyo baabuur kale oo cusub oo taargadiisu tahay 20 ka bilaabato ama 30 ka bilaabato hay'adii baa kireysan waayay dhibaato badan baa dhacday xagga amniga laftigeeda runtii concern badan baa laga muujiyay arrintan waa arrin wasaaraddu ay ku tilaabsatay horumarna aan ka gaarnay haddii alla idmo waxa iskugu jirtaa xarfo iyo lambar space kugu jirtaa halkii lambar oo mar taarga ah oo mar waxa weeye la qaatana mar labaad ma soo noqonayo baabuurka conditionkiisu kolba model baabuurka lagu gataa laakiin taarga lagu ma gadan doono haddii alla idmo Ahmed Sham Home Cable TV Boosaaso.